cabdishakuur maxamed afrax waxa uu yahay agaasimaha dukaanka qaabka online-ka ah wax looga iibsado ee organic shop sidoo kale waa mid ka mid ah halbowlayaasha iyo madaalayaasha dukaankan wuxuu qayb inuu ka soo qaatay in la aaso oo Soomaaliya gaar ahaan Muqdisho lagu soo kordhiyo dukaan qaab online ah dadka ku nool dibadda ee Soomaaliyeed iyo kuwa ku nool Muqdisho ama gudaha ay wax uga iibsadaan waxa uu yahay mid howlkar ah oo aad ugu mashquulsan in dukaankan dadku ay ka faa'iideystaan badeecadaha uu yaalo isla markaana ay yihiinba kuwa qaab online ah ay wax kaga iibsan karaan waxaan kula kulmay xafiiska ee xarunta ugu weyn magaalada Muqdisho waxaan weydiiyay ugu horeyn organic shops xilliga la aasay iyo waxyaabaha uu qabto ugu horeyn cabdishakuur dukaankan qaabka online wax looga iibsado organic shop xilliga la aasay waa mahadsantahay cabdirashiid rashka organic shops waa shirkad iibisa badeeca dabiici ah sida hore u sheegtayba waxaan asaasnay 2013 horaanteeda waxyaabaha ugu waaweyn ee u doorateen in shirkad qaab online ah wax u iibsada dadkuna internetku ay kaga iibsadaan inaad ka hirgelisaan Soomaaliya gaar ahaan Muqdisho maxaa u doorateen si muxuu ahaay bulshadeena ay u helaan waxa ugu fiican ay bulshadeena u noqdaan number 1 waxaan rabnaa in aan ka caawino dhinaca tiknoolajiyada sida adeegyadeena ay u gaaraan online kaliya ma ahane inay nafaqo helaan si ay horumar u gaaraan ubadkii muxuu ahaay inay cunto fiican helaan si ay wax u bartaan dalkina ay u horumariyaan marka ahmiyadda aan leenahay waxa waaye in uu dalkaani number 1 ka noqdo dhinaca tiknoolajiyad dhinaca nutrition iyo cosmetics intaas ugu muhiimsan waxa tahay agaasimaha dukaankan organic shop sidoo kale waxa ka mid tahay halbowlayaasha iyo asaasiyaasha dukaankan si kooban organic shop soo shaqeeya runtii organic shops waxaan sameynay adeeg aan ugu magac darnay adeego hadda waa adeeg aan ugu talagalnay dadka in ay isticmaalaan baraha bulshada amaba internetka guud ahaan dalabyadii ay u baahan yihiin ay sameeyaan intaas kaliya maahine waxaan sameynay bandhigyo oo online qaarkood yihiin oo howlwadeenadeena qaar ay muxuu ahaay soo bandhigaan waxtarka badeecada aan hayno waxaa kaloo sameynay bandhigyo oo aan bulshada qaarkood iskugu wacno oo muxuu ahaay aan ku soo bandhigno waxqabadkeena isla markaana aan ku soo bandhigno wacyigelinta aan wadno marka haddaa u fiirsato aniga shaqo ahaan waxaan ahay engineer ahay waxaan bartay maamulka xogta iyadoo la isticmaalayo tiknoolajiyada casriga amaba information technology marka waxa ay soo jiitay awoodda nafaqada sida ay wax uga bedeli karto caafimaadka qofka hadda tusaalahan haddaa fiiriso agabka caafimaadka waa sii horumarayaan dhakhaatiirtii way sii badanayaan Muqdisho kaliya haddaa fiirsto jaamacadihii ani markaa wax baranayay ma jirin caafimaadka hadda caafimaadku soo batay marka guud ahaan adduunkana agabka caafimaadka iyo wacyiga caafimaadku wuu sii horumaraa saas ay tahay cuduradii way sii baahayaan marka nadariyada anaga aan wadna waxay tahay falyanzur al-insaanu ilaa tacaamihi war cuntadiina fiirsha oo ka fiirsha inay yihiin wax ilaahay dhulka uu ka soo saaray inay yihiin wax dabiici ah marka anaga waxa ugu muhiimsan aan maxaa la dhahay bulshada u soo bandhigayno waa geedkan waa nooc kamida mushroomka waana mushroomka haddaa u fiirsato kuwa cilmi baarista lagu sameeyay number 1 waay waxaa loo yaqaanaa ganoderma loo yaqaanaa hadii مثلا aada looga hadlaa marka daawooyinka qaar xataa waa laga sameeyaa ilaahayna muxuu ahaay dhulka ka abuuray astaamo fiican uu leeyahay oo waxa kamid ah waxyaabaha uu qabto detoxification inuu jirka sunta ka soo saaro marka badeecooyinkeena badan haddaa fiirisid waxaa ku badan mushroomka qaxwadii ku jira shaahi ku jira saabuuntii ku jira shaambadii ku jira waxa intaas dheer marka anaga waxaan iibgeynaa shirkad la yiraahdo DXN oo Malaysian ah oo beerta iyada leh iyada process gareyso iyadan distribute gareyso marka alaabteeda baa meesha ku gadnaa waa shirkad yacni 93 la asaasay sumcad fiican leh shahaadooyin muxuu ahaay مثلا TGA kamida shahaadooyinka ISO 14 maxaa la dhahaa 14 iyo
iyo 9,001 oo yacni muujinayo wanaagga iyo tayada shirkadda ay leedahay iyo awooddeeda. waqti cabshakuur dadka organic shop dabcan ka adeegta bulshada ah maxay iskugu jiraan? bulshada waxay iskugu jiraan hooyo caruur korinayso, muxuu ahaaye hooyo caruurteedii iskool aadayaan, waxay iskugu jiraan hooyo uur leh, waxay iskugu jiraan dhalinyar jaamacadii dhiganayo, muxuu ahaaye waxay iskugu jiraan dhalinyar rabaan inay isqurxiyaan, waxay iskugu jiraan dad muxuu ahaaye daawo u socoto. annaga badanaa alaabteena daawo ma ahan, laakiin waa nutrition iyo cosmetics waay. marka dadka daawada u socoto aad ayuu muxuu ahaaye alaabteena u anfacayaan inay maxaa la dhahaa dhibaatooyinka daawada ay geysato kale ay ka yareyso jir difaacooda, inay dhisto muxuu ahaaye caafimaadkoodana ay wanaagsanaadaan. inta badan dadka waxaa kula talinaa dhakhaatiirta aada. marka waa kaasa ilaa iyo qofka intuu da sare ka gaarayo dhammaan alaabteena way isticmaalayaan. waqti cabshakuur dadka quruxda doonaya maxaa qabataan doonayna isqurxiyaan oo ay qurux noqdaan maxaa qabataan? dadka isqurxinayo waa runtii waxaana la shaqeeya gabdho oo maxaa la dhahaa skin careka si fiican u barteen, khibrad fiicanna u leh. gabdhahaas waxay aad u daraasiyaan alaabta aan hayno sida jirka oogada sare loogu isticmaali lahay. waxay sameeyaan qaacidooyin ay tijaabiyeen. waxaa la kaashanaa asxaab kale oo wadamada dibaddooda joogaan oo alaabta daraaseeyeen, maadaama shirkadda wadamo badan ay ka shaqeyso. marka maxaa la dhahaa synergygaas ama isku darkaas dadkaas khibradda kala duwan u leh dhinaca maqaarka ayaa muxuu ahaaye wadankii aa keenay, iyagaana muxuu ahaaye isku u sameeyaan muxuu ahaaye alaabta inteeda badan yacni isku dar badan uma baahna because shirkaddaa kasoo fakartay qaabkay u diyaarisay. marka waxaa ugu muhiimsan waxaa waaye gabdhahaas ayaa muxuu ahaaye gabdhihii la kulmaan, arkaan xaaladooda, amaba haddii rag yihiin raggaa meesha jooga arkaan xaaladooda, kabacdi waxay kula taliyaan markaas badeecada u fiican oo anfaceyso. dadka ama dumarka isticmaala daawooyinka kiimikada leh oo weliba aad u badan ee doonaya midabka caddaanka ah mid yimaado way noo yimaadaan. waxaa igu cajiibsan qaar rabo in problemkii qabeen laga xaliyo isla markaasna aysan midabkoodii hore usoo laabanin. inta badan waxaa u sheegnaa annaga dabiiciyaan ah, qofka macnaha alaabtaas siinayna waa alaab dabiici waaye. alaab dabiicigana inta badan qofka wax badan kama bedelaan haddayna yacni haddii midabkiisa asaligay helayaan. marka waxaan kula talinaa iscadaynta khatarta ku ah inay iska dhaafaan, waa ku wacyigelinaa. alaabtana waa siinaa oo problemkeena ka xalinaysa midabkooda asliga ahayna u soo celinayaan. dadka ka caawinaya gaar ahaan ragga ee ka caawinaya bidaarta oo kale daawooyin dabiici ah timuhu ay ka maqan yihiin? bidaarta yacni bidaar ahaan uma xalino, laakiin dadka waxaan ka caawinaa in ay helaan yacni shaambo yacni chemicalska ku yar yihiin, isla markaasna leh mushroomkii wax yar ka hor aan sharxayay. waxaan kaloo siinaa saliid oo matalan si dabiici loo sameeyey. 2 nooc oo saliida annaga haynaa, mid yacni qumbihii oo loo isticmaalay teknolojiyad suurtagelinaysa in maadooyinka aysan ka lumin. dadkana yacni aaday hadda nooga gataan oo qumbihii aan naqaani waayihii hore ka duwan, yacni qumbihii oo asli ahoo qofka dareemaya saameynteeda. yacni annaga waxaa kula talinaa qofka inuu dhoorto waxa markaas tintiisa ama madaxiisa inuu wax u ilaaliyo inuu isticmaalo. sidoo kale cabshakuur waxaa organic shop ay ka adeegtaa dad adeegsanaya internetka qaab online ah iyagoo jooga dalka dibaddiisa. dadka dibadda waxa idinka iibsadaa maxay inta badan ay yihiin dalabkooda muxuu badan yahay? dadka inta badan waxay soo dalbadaan waxyaabaha ay isticmaalaan sida maalinlaha ah. مثلا saabuuntii isticmaali lahaayeen, shaambadii isticmaali lahaayeen, muxuu ahaaye qaxwadii cabi lahaayeen, waxyaabahaas oo joogtada yani dailigu isticmaalaan. sidoo kale dadka annaga dibadda tusaale ahaan nooga imaado waxay aad u daneeyaan nutritionka. waxaa moodaa dadka nafaqada yani maalan qofka yani waa caafimaad qabaa oo fiican yahay, laakiin wax caafimaadkiisa ilaaliyo u baahan yahay. marka dadka dibadda naga soo gala waxay badanaa u badan yihiin dhinaca categorika oo la dhaho food supplementiga. magacaas ayaa noogu qoran, dabcan waa cunto kaalmeeye saasaa u bixinay
oo u suurtagelinaya yacni qofkii isagoo cuntadiisa yoomiga cunaya in uu helo wax u dhammaystira maadooyinka cuntada laga heli lahay ee cuntadaas ka maqan madalan dadka intooda badan isla cuntadii ayay cunaan subaxii yacni waxaa ka hadlaya maadooyinka laga helayo cuntada subaxii waxay cunayaan waa la mid waxay ku qadeynayaan waxay ku casheynayaan waa la mid marka WHO oo kale maray ka hadlaysa waxay dhahday in ku dhow maxaa la dhahaa 80 milyan oo qof adduunka weliba wadamada aad ku hormaray waxaa hayo waxaa la dhaho malnutritionkii waxaa naqaan anaga qofkii oo lafa noqonaya laakiin kani waa cuntadoodii ma dhammaystirna yani waxaa khalkhal oo cuntadii maadooyinka ka maqan yahay marka dadka badanaa dibadda nagala soo xiriirayo waxay dalbadaan categorika oo food supplementiga wadamaantii cashukur badeecooyinka iibsaan ma jiraan meelo kale oo shirkadu u geyso dadku ay ka faa'iidaystaan suuqyo kale ma jiraan oo aad u iibgeysaan badeecooyinkaas inta badan anaga online alaabta ku gadnaa ilaa iyo muxuu wadamada deriska anaga ka fargareeno iyo gobolada qaarkood Soomaaliya wadamada laakiin Europe iyo Mareykanka Afrika qaybo kamid ah shirkadda ayaa toos u joogto oo alaabtii way ka helayaan Europe oo kale waxay ku fiican tahay online ay leeyihiin oo online ku dalba karaan sida hadda Muqdisho aan ka sameynay meelaha aan online ka lahayn dadka xafiisyada u tilmaana waxaa leenahay muxuu ahaay sales consultants oo qaabilsan la taliyaal qaabilsan yani suuqa qaas dibadda ah oo dadkii caawinayo kaalmeenayo